asxaabta waan salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Fadlan haddaad tahay qofkii ugu horeeyay muuqaalka like saar, channelkana subscribe saar, waa dhiirigelin. Runtii asxaabta muuqaala ayaa soo diyaarinaya, kusoo dhawaada muuqaalkeena cusub. Runtii aniga qoyskeeni waxaan jeclaysanay markasta inaan dalxiis aadno. Qoyskeygina waxay ka koobnaayeen hooyaday, aabahay iyo laba walaashay iyo walaalkay. Anigana markasta waxaan ahay qof aad u aqli badan. Runtii aad safar ayaan aadnay, waxaana aadnay safar aad iyo aad u dheer. Aabahayna wuxuu ahaa nin aad hadalka u jeclaan badanaa. Kadibna wadada zaad ayay u dheereed, wayna leexleexda badneed. Kadib aabahay wuxuu yidhi iska seexda, aniga ayaa gaariga sii wadaaye. Kadibna walaashay ayaa hurdootay, anigana buug ayaan akhrisanay, walaashayna iPhone ayay dhageysanaysay. Kadib dhammaanteen waan seexanay. Xoogaha kadib meel ayaa imaanay aan ku dalxiisno. Hooyadayna wax jiif ayay iska dhigaysay, laakiin moobilka ayaa iga damay. Hooyadayna way arkaysay. Kadibna furaha ayay gacanta ka soo bixisay iyadoo markaasi rabtay inay siiso. Kadibna waxay dhahday gabadhaydii kaalay oo furahan qaado, meelna ha aadin, gaariga aad, telefoonkeyga ku jiro ku dheeldheel. Kadibna waxaan aaday gaarigii, cabaar ayuuna ii jiray. Hooyadayna meeshaas ayaa uga soo tagay walaalahay. Kadibna anigoo markaas cabaar socday ayaa waxaan arkay arrin naxdin leh. Gaariga u socday oo taagan nin oo muraayada ka fiirinaya. Zaad ayuuna markaas aniga uga cabsoonayay. Asagana dharkii zaad ayay u dildilacsanayeen, lugihiisana waxaa hayeen wasaq. Kadibna waxaa dhahay adeer maxaa gaarigayga ka samaynaysaa? Kadibna wuu isoo fiiriyey, dhabarkana wuu ka dildilacsanaa, dharkiisa dhan waa jajexnaayeen. Gaariga markiiba wuu iskaga tagay asagoo ila hadlin oona shanqar aan muujin. Kadibna gaariyaasha kale ayuu sii aaday. Nin aad uga cabsanaya ayuu ahaa. Anigoo markaas ninkii aanan ka mashquulin oo fiirinaya horteyda ayaa waxaan arkay telefoonka hooyo ayaan iskaga mashquulaya cabaar. Kadibna waxaan wacay saaxiibkay aan kasoo tagnay. Kadib markiiba albaabka iga soo qaraacay ninkii asagoo daaqada furaya oo muraayadan riixriixaya. Kadibna aniga zaad ayaan u qayliyay, waayo agteeda dadka may dhaween. Telefoonka ayaan wacay hooyo, laakiinse waxaan dhahay waa inaan fikiraa. Kadib hoonka ayaan yeeriyey saa loo maqlo, laakiinse aagaas baabuurta yaaloo dhan wax ku jira dad ma lahayn. Dadkiina meeshaas ayaa uga soo tagay, waalidiinta iyo asxaabta kaloo gaariyaasha lahaa. Kadibna albaabka wuu furi waayay ninka, laakiin wuu iskaga tagay goor dambe. Wuxuuna igu yidhi gaariga haddaad kasoo degto waa ku cunayaa. Anigoo markaas naxsan ayaa waxaan dhahay gaariga waa inaan ka degaa. Zaad ayaan u cararay, aniga markaas waan baqayay. Hooyaday ayaa furaha u keenay. Waxaan dhahay arrintii dhacday ayaa uga sheekeeyey. Aabahay ayaa loo sheegay iyo walaalkay. Kadibna meesha ayaa anigu ku ooyay, waayo ninkii wuu idili lahaa, waana ka baqayay. Walaalahay ayaa markaas yidhi raali noqo, mar dambena uma noqonayn. Kadib kasoo tagnay. Walaalahay dadka dhan way raadinayeen. Ninka meeshaas taagnaa ayaa waxaa la yidhi nin ma aragtay meeshaad jooga? Maya ayuu yidhi. Meeshaasna gebigeed waa iskaga tagnay. Mar dambe inaan kusoo noqon ma jeclaysan. Anigoo markasta zaad u naxnaxayo oo rabo inaan isku mashquuliyo xaafadda ayaa markasta asaga dareemaya inuu ila joogo. Saas ayaan